بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. ma jiro noole ku sugan dhulka oo aysan allaah irsaaqadiisu saarnayn wuxuuna og yahay rugtiisa hoyaadka u ah iyo halka uu ku kaydsan yahay dhammaan waxay ku yaaliin kitaab cad looxa maxfuudka. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. alle waa kan ku abuuray samooyinka iyo arlada 6 maalmood wuxuuna ahaa carshigiisu biyo korkood si uu idiin imtixaamo kiina idinku camal wanaagsan. haddaad tidhaahdo waa la idin soo bixin dhimasho kadib waxay kuwa xaqa diida oo dhan qur'aan kani ma aha waxaan ahayn sixir caddaan ah. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. haddaan dib uga dhigno cadaabka ilaa muddo tirsan waxay oo dhan maxaa haysta oo celinaya maalinka uu iman cadaabku ma aha wax laga weecin waxaana ku dhici waxay ku jeesjeesayeen. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. haddaan ka dhadhansiinno aadmiga xaggayaga naxariis markaas aan ka qaadno wuxuu noqdaa mid quusta dafiraad iyo abaaldhac badan. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. haddaan dhadhansiinno khayr kadib dhib taabtay wuxuu odhan way i dhaafeen dhibaatooyinkii wuxuu noqdaa mid farxafaan badan. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. kuwa samra mooye oo samaha fala kuwaas waxay leeyihiin dembi dhaaf iyo abaalgud weyn janno. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. waa intaasoo aad ka tagto qaar ka mid ah waxaa lagu waxyoodo oo ay ku cidhiidhi noqoto laabtaadu inay yidhaahdaan darteed maxaa khasnad loogu soo dejin waayey ama uu u soo raaci waayey malag waxaad adigu tahay oo keliya dige
alle baana wax walba xafida. أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. mise waxay leeyihiin waa uu been abuurtay qur-aanka. keena 10 suuradood la been abuurtay oo la mid ah oo u yeedha inay idinku caawiyaan cidaad kartaan alle ka sokow haddaad run sheegaysaan. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. haddiise aysan idin ajiibin ogaada in lagu soo dejiyey qur-aanka cilmiga ilaahay iyo inuusan jirin ilaah xaq lagu caabudo isaga allah maahe ma u hoggaansamaysaan. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. qofkii raba noloshan adduunka iyo quruxdeeda waxaan ugu ofin sidan abaalgudka camalkooda gudaheeda iyagoon waxba laga dhimayn. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. kuwa weeye kuwa aan ku lahayn aakhirada waxaan ahayn naar waxaana buri waxay ku faleen dunida camalosan waxbana kama jiraan waxay falayeen. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ma qof xujo cad ka haysta rabbigii uu akhriyo markhaati xaggiisa ah hortina isaga waxaa ahaa kitaabkii muuse ee ahaa hanuun iyo naxariis baa la mid ah mid adduun uun dooni kuwan baa rumaysan waxaa ku soo arooray qur-aanka. qofkiisa rumayn diida qur-aanka oo ka mid ah axsaabta kala duwan waa naarta madashiisu ee shakiyuu kaa gelin. hubaal waa xaq ka yimid rabbiga laakiinse intooda badanse dadku ma rumaysna. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. yaa ka dulmi badan midka been sheega allah. kuwan waxaa la hor keeni rabbigood markhaatiyaduna waxay odhan kuwan waa kuwii ka been sheegay rabbigood ee lacnada alle dushooda ha ahaato daalimiinta. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. kuwa ka weecsha dadka jidka alle lana dooni qalooc aakhirana rumaysnayn. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من
الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. kuwani ma ku baxsan karaan arlada umana sugnanan wax gargaarayaal ah alle sokadii. waxaa loo labalaabi cadaabka. ma karaan inay xaqa maqlaan ama arkaan. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. kuwa weeye kuwa khasaari nafahooda waxayna waayi waxay been abuurteen. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. shaki ma leh aakhirada waa iyaga kuwa ugu khasaaraha badan. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. kuwa xaqa rumeeyey oo samaha fala oo u khushuuca rabbigood waa kuwa ahlu jannadu iyagoo ku dhex waari weligood. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. mataalka labada kooxood waa sida indhoolaha iyo dhegoolaha iyo wax arkaha iyo wax maqlaha miyay siman yihiin mataal ahaan. miyaydan waan toobayn. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. waxaan u dirnay nuux qoladiisii isagoo leh waxaan idiin ahay digacad. ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. inaydan caabudin waxaan ahayn allah waxaan idinka cabsan cadaab maalin xanuun badan. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. waxayse xildhibaanadii ka mid ahaa kuwa rumayn diiday xaqa ee ka mid ahaa qoladiisii yidhaahdeen kuma aragno waxaan ahayn qofna la mid ah mana aragno wax ku raacay aan ahayn kuwa noogu liita oo iska ka raacay durbaba markaad u bandhigtay ka fiirsilaan. idinkuma aragno wax aadna dheer tihiin oo fadli ah balse waxaan idiin malaynaynaa beenalayaal. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. wuxuu yidhi tolkayow bal ka warrama haddaan ka haysto xujo cad xagga rabbigay ina siiyey naxariis xaggiisa ah oo la idinka indhotiray. miyaan idinku qasbaynaa inaad aqbashaan idinkoo nacayb u qaba. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. tolkayow idinku weydiisan maayo maal
abaalgudkayga Allah baa ii haya. Aniguna ma ahi mid eriyaya kuwa xaqa rumeeyey. Hubaal waxay la kulmi Rabbigood, waxaanse arkaa inaad tihiin qolo jaahiliin ah. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. Tolkayow, yaa iiga gargaari oo iga celin Allah haddaan iyaga eriyo. Miyaydan waan samayn? ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. idinkuma odhanayo waxaan hayaa khasnadaha Ilaahay, mana ogi waxaan muuqan ee qarsoon. Idinmana odhanayo waxaan ahay malag, idinmana odhanayo kuwa ay quursadaan indhihiinnu Alle ma siinayo wax khayr ah. Allah baa dhab u ogsoon waxaa ku sugan nafahooda. Haddaan sidaa yeelo markaas waxaan ka mid noqon daalimiinta. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. waxay yidhaahdeen, Nuuxow, waad nala dooday oo aad badisay la doodistayada, noo keen waxaad noogu goodinayso haddaad run sheegayso. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. wuxuu yidhi, waxa uun idin keeni kara Alle hadduu doono, mana baxsan kartaan. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. waxna idiima tarto waanadayda haddaan doono inaan idin waaniyo hadduu Alle rabo inuu idin lumiyo. waa isaga Rabbigiin, xaggiisaana la idiin soo celin. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. mise waxay leeyihiin wuu been abuurtay qur-aanka. haddaan been abuurtay, dembigayga anuu i saaran yahay, aniguna bari baan ka ahay waxaad dambaabtaan. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. waxaa loo waxyooday Nuux inaysan cidna ka rumaynayn qoladaada wixii horay u rumeeyey maahe. ha ka xumaan waxay falaan. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. kuna samee doonida indhahayaga hortooda iyo si waafaqsan waxyigayaga, hana igala hadlin arrinka kuwa dulmiga, shirkiga iyo macaasida fala, waa la qaaqine. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. wuxuu bilaabay inuu sameeyaa doonida markasta ay soo ag maraan xildhibaanada ka mid ah qoladiisa, way ku jeesjeesayeen. wuxuu yidhi, haddaad nagu jeesjeestaan,
inaguna waa idinku jeesjeesi sidaad u jeesjeesaysaan. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. waadna ogaan doontaan cidduu u yimaado cadaab duleeya kuna dego cadaab joogta ah. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وما آمن معه إلا قليل. jeer markuu amarkayaga yimid oo tinaarkii biyo ka soo burqadeen waxaannu nidhi ku qaad doonnida 2 nooc kasta lamaane iyo ehelkaaga marka laga reebo kuwa uu qowlka horay ugu maray in la haligayo xaaskii Nuux iyo wiilkiisa Kancaan waxaana badbaaday Saam, Xaam iyo Jabiit iyo kuwii xaqa rumeeyey. mana ay la rumayn xaqa in yar maahe. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. nuux wuxuu yidhi ku kora doonida magaca Ilaahay oo ay ku socon kuna joogsan. hubaal rabbigay waa dembi dhaaf badane naxariis badan. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين. way la socotay hirar dhexood buuro oo kale ah wuxuuna Nuux u dhawaaqay wiilkiisii wuxuuna joogay meel ka gaar ah wiilkaygow nala soo kor doonida hana noqon la jirka gaalada. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. wuxuu yidhi waxaan magangeli buur iga dhowrta biyaha. Nuux wuxuu yidhi ma jiro wax ka badbaadi maanta amarka Ilaahay cid uu u naxariisto maahe. waxaana kala dhex galay hirkii marka wuxuu ka mid ahaa kuwii la qarqiyey. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. waxaana la yidhi dhulkow liq biyahaaga oo daruurtay qaad jooji biyihiina waa la gudhiyey amarkii Ilaahayna hirgalay. doonidiina waxay dul degtay aljuudi waxaana la yidhi ha fogaadeen qolada gar maqaatayaasha ah. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. wuxuu Nuux u dhawaaqay rabbigiis oo yidhi rabbiyow wiilkaygu wuxuu ka mid yahay ehelkayga ballanqaadkaaguna waa xaq waxaadna adigu tahay kan ugu caadilsan inta wax xukunta. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح
فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. alle wuxuu yidhi nuuxow wiilku ka mid ma aha ehelkaaga waa camal xun yahay ee ha i weydiisan waxaad u lahayn cilmi waxaan kaa waanin inaad ka mid noqoto jaahiliinta. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. nuux wuxuu yidhi rabbiyow waxaan kaa magangelayaa inaan ku weydiisto wax aanan u lahayn cilmi haddaadan ii dembi dhaafin oo i naxariisan waxaan ka mid noqon kuwa khasaaray. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. waxaa la yidhi nuuxow ku deg nabadgelyo xaggayaga ah iyo barakooyin korkaaga iyo korkooda dadka ka mid ah kuwa kula jira waxaase jiri doona ummado aan u raaxayn in xoogaa muddo ah kadib waxaa ka taaban doona xaggayaga cadaab xanuun badan. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. kuwani waa warar la xidhiidha waxaa dahsoonaa ee aan ku waxyoonno ma aad ogeyn adiga iyo qoonkaaguba kani qur-aanka ka hor ee samir hubaal cidhibta wanaagsan waxaa iska leh kuwa alle ka cabsada ee iska jira xumaha. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. xagga caad waxaan u dirnay walaalkood huud wuxuu yidhi tolkayow caabuda alle oo keliya ma lihidin ilaah kale xaq ah aan isaga ahayn idinku ma ahidin waxna aan ahayn been abuurtayaal. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. tolkayow idinkuma weydiisanayo wax abaalgud ah abaalgudkayga wuxuu saaran yahay oo keliya kan i abuuray ee ma weydaan haddaba garowsanayn. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. tolkayow weydiista dembi dhaaf rabbigiin una toobad keena wuxuu idiin soo dirayaa daruuro shubaya roob badan oo darar ah idinkuna darayaa xooggiinna hana jeesanina idinkoo dembiilayaal ah. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك
وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. waxay yidhaahdeen huudow noolama aad imaan wax xujo cad ah kagamana tegayno ilaahyadayada hadalkaaga darti kumana rumaynayno. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون. waxaa keliya aanu leenahay waa in qaar ka mid ah ilaahyadayada ay ku gaarsiiyeen xumaan cudur. wuxuu yidhi waxaan marag gashanayaa alle idinkuna ka ahaada marag inaan anigu bari ka ahay waxaad wax la wadaajisaan. min duunih fakiiduunii jamiican thumma laa tunziruun. isaga ka soo haray ee ii tabdhigta idin koo isu dhan hana isiinina wax fursad ah. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. anigu waxaan tala saartay isku halleeyaa oo ku kalsoonahay allah rabbigay iyo rabbigiin ma jiro noole jooga dhulka oo uusan hayn fooda. rabbigay wuxuu ku sugan yahay jid toosan umuurahiisa oo dhan. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ. haddaad jeedsataan waxaan idin soo gaarsiiyey fartiintii la iigu soo kiin dhiibay. wuxuuna rabbigay keeni qolo kale halkiina waxnana kama dhimi kartaan. rabbigay wax walba kor buu ka ilaaliyaa. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. markuu yimid amarkayaga waxaan ku badbaadinay huud iyo intii la rumaysay xaqa naxariis ka ahaatay xaggayaga waxaana ka badbaadinay cadaab adag. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. taasi waa caad waxay dafireen aayadihii rabbigood oo caasiyeen rusushiisa waxayna raaceen amarka macanga kasta oo madax adag. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. waxaana la raaciyey nacalad adduunyadan iyo maalinta qiyaamahaba. caad waxay beeniyeen rabbigood ee ha fogaadeen caad qoladii huud. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. tamudna waxaan u dirnay walaalkood saalix. wuxuu yidhi tolkayow
caabuda alle oo keliya ma lihidin ilaah kale oo xaq ah aan isaga ahayn. Wuxuu idinka ahaysiiyey dhulka oo idin dejiyey dhexdiisa si aad u camirtaan ee weydiista dembi dhaaf una toobad keena. Rabbigay wuu dhow yahay ajiiba baryada. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. waxay yidhaahdeen Saalixow, waxaad ahayd mid dhexdayada lagu rajo weyn yahay intaan ka hor ma waxaad naga reebi inaan caabudno waxay aabbayaasha iyo caabudayeen. Innagu waxaan ka qabnaa shaki yaab leh waxa aad noogu yeedhi tawxiidka islaamka. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. wuxuu yidhi tolkayow, bal ka warrama haddaan ka haysto xujo cad Rabbigay oo uu ii siiyey naxariis xaggiisa ah, yaa iiga gargaari alle haddaan ku caasiyo. Iimana kordhisaan waxaan ahayn khasaaro. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. tolkayow, tani waa hashi Ilaahay oo idiin ah calaamad mucjiso ee iska daaya hadaaqdo arlada Ilaahay hana u geysanina wax xumaan ah si aanay idinku dhicin cadaab dhow. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. wayse dileen hashii. markaasuu wuxuu yidhi ku raaxaysta deegaankiina 3 maalmood. kaasi waa wacad run ah aan la beeninayn. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. markuu u yimid amarkayaga waxaan ku badbaadinay Saalix iyo intii rumaysay naxariis ka ahaatay xaggayaga oo ka badbaadinay dulligii maalintaas. hubaal Rabbiga waa awood badanaha adkaadaha sare ah. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. qaylo weyn qarax daran baana qabtay kuwii dulmiga falay, markaasay noqdeen baqti afgambi u yaal guryahooda. كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. sidii inaysan weligoodba ku dhex nagaan halkaa, Tamuud waxay rumayn diideen Rabbigood. ha fogaadeen Tamuud qoonkii Saalix. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. rusushayadii malaa'igta ahayd waxay ula yimaadeen Ibraahim war bishaaro ah. waxay yidhaahdeen salaam, nabad ahow.
wuxuu ku jawaabay salaam nabad ahaada waxyar kadibna wuxuu sooriyo ugu keenay weyl shiilan فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط markiise uu arkay in aanay gacmahooda u soo fidin xaggeeda wuu qoonsaday oo ka gashay cabsi xaggooda waxay ku yidhaahdeen ha cabsan waxaana loo soo diray reer luud وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب marwadiisuna waxay taagnayd halkaa markaasay qososhay waxaana ugu bushaaraynay isxaaq gadaashina wiilkii yacquub قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب waxay tidhi waa la yaabe miyaan dhali anigoo habar duqowday ah ninkayguna yahay oday gaboobay arrinkani waa wax la yaab leh قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد waxay yidhaahdeen ma waxaad la yaabi amarka ilaahay naxariista ilaahay iyo barakooyinkiisa korkiina ha ahaadeen reer ibraahiimow hubaal alle waa ammaanle la mahdiyo sharaf badan فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط markay baqdintii ka tagtay ibraahim oo u timid bishaaradu wuxuu bilaabay inuu nagala doodo arrinta qoladii luud إن إبراهيم لحليم أواه منيب hubaal ibraahim waa dulbadane qalbi jilicsan toobadkeen badan يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ibraahimow iska daa warkani waxaa yimid amarka rabbiga iyagana waxaa u imaan cadaab aan dib loo celinayn ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب markay rusushayadii malaa'igta ahayd u yimaadeen luud wuu ka walbahaaray wuuna la cidhiidhiyamay wuxuuna yidhi kani waa maalin daran وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد tolkiisii baa u yimid sida in la soo dedejiyey xaggiisa iyagoo horayba u samayn jiray falal xun wuxuu yidhi tolkayow kuwani waa gabdhahaygii iyagaa idinka daahirsan ee ka dhowrsada ciqaabka ilaahay oo ha igu dullaynina martiday miyaanu idinku jirin nin toosan
قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. waxay yidhaahdeen waad og tahay inaanaan ku lahayn wax xaq ah gabdhahaaga waadna og tahay waxaannu rabno. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. wuxuu yidhi hahe ma aan lahaado xoog aan idinku caabiyo ama meel aan u ciirsado tiir adag leh. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. waxay yidhaahdeen luudow waxaannu inagu nahay rusushii rabbiga waxnana kuma gaarsiin karaan ee la guuree ehelkaaga qayb ka mid ah habeenka oo yuusan midkiina dib u soo jeesan marwadaada maahee waxa ku dhici iyaga ballankooduna waa subaxa miyuusan subaxu dhowayn. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. markuu yimid amarkayagii waxaan u rognay afgambi oo korkoodii hoos marinay waxaana roob kaga dhignay dhagxayo dhoobo shidan ah oo isdaba jooga. مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. laga soo calaamadiyey ciqaab darteed rabbigaa agti mana aha wax ka fog daalimiinta garmaqaatayaasha. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. madyana waxaan u dirnay walaalkood shucayb wuxuu yidhi tolkayow caabuda alle oo keliya ma lihidin ilaah kale oo xaq ah aan ahayn isaga hana dhimina beega iyo miisaanka waxaan idinku arkaa khayre maal oo hubaal waxaan idinka cabsan cadaab maalin wax koobaysa. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. tolkayow oofiya beega iyo miisaanka si cadaalad ah hana ka duudsinina dadka waxyaalahooda ha ku biininana dhulka fasaadkaad falaysaan. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. waxa ku baaqiga ah alle agtiisa ayaa idiin roon haddaad tihiin muminiin oo anigu idiin ma ahi kormeere.
قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. waxay yidhaahdeen Shucaybow, ma waxay salaadahaadu ku amraan inaan ka tagno waxay caabudaan aabbayaashayo ama inaannu ku falno maalkayaga waxaan doonno? Adigu waxaad tahay dul badanaha waxgaradka ah. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. wuxuu yidhi tolkayow, bal ka warrama haddaan ka haysto xujo cad xagga rabbigay ina siiyey risiq wanaagsan oo xaggiisa ah. Anigu ma doonayo inaan idiin daba maro falidda waxaan idinka reebo. Ma doonayo waxaan wax wanaajin ahayn intaan karo. Mana jiro waxaan Alle ahayn oo i waafajin kara talada toosan. Isagaan isku halleeyaa oo tala saartaa, xaggiisaana ula noqon toobad. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. tolkayow, yaysan idiin soo jiidin colaadaad ii qabtaan dembi fal sidaa darteed uu idinku dhaco wax la mid ah wixii ku dhacay qoladii Nuux ama qoladii Huud ama qoladii Saalix. qoladii Luudna ma aha wax idinka fog. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. weydiista dembi dhaaf rabbigiin una toobad keena. Rabbigay waa naxariis badane, jecel ciddii toobad keenta. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. waxay yidhaahdeen Shucaybow, fahmi mayno in badan oo waxaad leedahay ah, waxaana ku aragnaa mid daciif ah dhexdayada. haddaannu kugu xaq dhowrayn tolkaa dhagax tuur baan kugu dili lahayn, mana tihid adigu mid nagu leh ciso iyo sharaf. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. wuxuu yidhi tolkayow, mareerkan ka dhashay baa idinkala darajo roonaaday Allah, oo ka yeelataan sida waxaad tuurtaan dhabarkiinna gadaashiis, hubaal rabbigay waa koobaa waxa aad fashaan. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. tolkayow, waa camal fasha sida karaankiina ah, aniguna sidoo kale waan camal falanayaa. waad se ogaan doontaan waa kee kan ay ku iman cadaab dulaysa, waana kee kaasi ah beenale oo dhugta, aniguna sidoo kale waan idinla dhugane
sugayaa natiijada iyo waxa idinku dhaca. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. markuu yimid amarkayagii waxaan ku badbaadinay Shucayb iyo intii la rumaysay naxariis ka ahaatay xaggayaga. oo qaylo weyn qarax daran baa qabtay kuwii dulmiga, shirkiga iyo macaasida falay, markaasay noqdeen baqti afgambi u dhex yaal guryahooda. ummadahaasoo dhan waa la rogay. كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. sidii inayan weligoodba ku noolaan halkaa. ha fogaadeen madyan siday u fogaadeenba Tamuud. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. waxaan ula soo dirnay Muuse aayadahayagii iyo xujo cad. إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. xagga Fircoon iyo xildhibaanadii waxayse raaceen amarkii Fircoon, oo amarka Fircoonna ma ahayn mid toosan. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. wuxuu horkici tolkiisa maalinta qiyaamaha oo keeni hoos xagga naarta xumaa halka la keenayo. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. waxaana lagu raacshay naclad duni tani gudaheeda iyo maalinta qiyaamaha xumaa waxaa loo kordhin oo cadho alle iyo cadaab ah. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. arrinkani waa warkii aayihii magaalooyinka aan kaaga qisoonno, waxaa ka mid ah kuwa taagan iyo kuwo kale oo la halaagay. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. oo ma aanu dulmiyin iyagaase dulmiyey nafahooda. waxna uma tarin ilaahyadoodii Allah sokadii ay baryi caabudi jireen markuu yimid amarka Rabbiga, umana ay kordhin waxaan ahayn baaba. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. waana sidaas qabashada Rabbiga markuu qabto magaalooyinka iyagoo gardiid ah dulmi fali, hubaal qabashadiisu waa mid xanuun badan oo daran. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. waxaa arrinkani ugu sugan calaamad ciddii ka cabsata cadaabka aakhirada. kani waa maalin dadka la soo kulmin iyagoo dhan, waana maalin goobjoog la ahaan. وما نؤخره إلا لأجل معدود. umana dib dhigno waxaan ahayn muddo tirsan oo hore loo gooyey.
يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد maalintay iimaan nafina ma hadlayso idankiisa la'aantii markaasi waxaa ka mid ahaan kuwo xun oo khasaaray iyo kuwo liibaanay فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق kuwa hoogay waxay ku sugnaan naar waxay ku leeyihiin dhexdeeda cartan iyo hiindaag خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد iyagoo ku waari dhexdeeda intay jiraan samooyinka iyo arladu wuxuu rabbiga doono maahe hubaal rabbiga waa falaha wuxuu doono وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ kuwa saliibaanay waxay ku sugnaan jannada gudaheeda iyagoo ku dhex waaraya intay jiraan samooyinka iyo arlada wuxuu rabbiga doono maahe waa deeq aan goyn oo daayin ah فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ha ka shakiin xumaanta waxay kuwaanu caabudaan ma caabudaan waxaan ahayn waxay caabudeen aabbayaashood mar hore oo hubaal waanu uufin si dhan saamigooda ciqaabka oo aan waxba laga dhimayn ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب waxaanu siinay muuse kitaabka towraadda waase la isku khilaafay haddaysan jirteen kelmad horay uga dhacday rabbiga waa la kala xukumin lahaa dhexdooda waxaana iyaga kaga jira shaki daran qur-aanka وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير dhammaana wuu uufin rabbiga camaladooda si dhan alle waxay camal falaan waa u xog ogaal فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير hay dhabaha toosan ee islaamka sida lagu amrayba adiga iyo kuwa la jirka u soo laabtay xagga alle ee toobad keenay hana xadgudbina hubaal alle wuu arkaa waxaad camal fashaan
ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. hana u iilanina kuwa dulmiga shirkiga iyo macaasida fala si ayaan naari idin taaban mana lihidin alle sokadii awliyo laydiina gargaari maayo. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. og salaada labada dacal ee maalinta iyo saacadaha hore ee habeenka. hubaal camalada wanaagsan waxay tiraan camalada xun, arrinkani waa u waano kuwa waana qaata. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. oo samir yeelo, hubaal alle ma dayaco ajarka samafalayaasha. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. maxaase looga dhex waayey qaaruumihii idinka horreeyey dad leh garasho oo ka reeba fasahaadka dhulka dhexdiisa wax yar mooye oo ka mid ahaa kuwii aan ka badbaadinay dhexdooda. kuwiina dulmiga falay waxay daba galeen wixii loogu raaxeeyey waxayna ahaayeen dembiilayaal. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. rabbigaana uma halaago magaalooyinka dulmi iyagoo ay dadkoodu wanaagga isfaraan xumahana iska reebaan. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. hadduu doono rabbiga wuxuu ka yeeli lahaa dadka ummad keliya mase dayn doonaan inay iskhilaafaan. إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. mid uu rabbiga u naxariisto maahee arrinkani tawxiidka awgi buuna u abuuray. wayna taam noqon kelmadda rabbiga oo ah waxaan ka buuxin jahannama jinka iyo dadkoo dhammi igu caasiya. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. dhammaan waxaannu kuu soo tebinno oo ku saabsan wararka rususha waa si aan ugu xoojinno qalbigaaga. waxaana kuugu yimid suuradda tani dhexdeeda xaq iyo wacdi iyo waanada mu'miniinta. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. kuna dheh kuwa aan xaqa rumaynin u camal fasha sidii naas dowga idinla ah, inaguna sidoo kale waannu camal falanaynaa.
وانتظروا إنا منتظرون sugana edhibta arrinkiinna innaguna sidoo kale waannu sugaynaa. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. allah baana iska leh waxa aan muuqan ee jira samooyinka iyo arlada xaggiisaana loo celiyaa arrinka oo dhan. Caabud isagoo keliya oo tala saaro. Rabbigaana ma aha mid moog waxaad falaysaan. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. ألف لام را كوكني وآياتك كتابك قرآنك عد. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أنك الله باسود جيني قرآن عربي سياد أفهمتان. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. أنك أياكاغا قصوينك مدى واناكسن آنو كوغو وحيونو قرآن كان إنكستو كهر aad ka mid ahayd kuwaan u warhayn. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. markuu yuusuf ku yidhi aabbihii aabbow waxaan arkay 11 xiddigood iyo qoraxda iyo dayaxa waxaan arkay iyagoo ii sujuudsan macnaha rukuucsan salaan ahaan. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. يعقوب wuxuu yidhi wiilkaygiiyow ha uga qisoon riyadaada walaalaha si aanay kuugu dhigin shirqool iyo dabin kaa dhan ah. hubaal shaydaanku wuxuu u yahay aadmiga cadow cad. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. sidaasuu kuu dooran rabbiga oo kuu bari fasirka riyooyinka iyo dhacdooyinka kuuna dhammaystiri nicmadiisa adiga iyo reer yacquuba siduu ugu dhammaystiray horay aabbayaasha ibraahim iyo isxaaq. hubaal rabbiga waa wax kasta ogsoone xakiim ah oo dhaah iyo falsan. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. xaqiiq yuusuf iyo walaalihii waxaa ugu sugan calaamooyin waano kuwa weydiin. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. markay yidhaahdeen yuusuf iyo walaalkii buu naga jecel yahay aabbaheen innagoo ah koox xoog iyo tiro badan 10 nin ah. hubaal aabbaheen wuu gefsan yahay. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. dila yuusuf ama ku tuura alro
uun si uu idinku gaar noqdo wejiga aabbahiin oo taasi ka dambow aad ahaataan dad wanaagsan. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. hadlaa ka mid ah Judah baa wuxuu yidhi hadilina Yuusuf ee ku tuura ceel salkiis ha qaateen qaar safar ahe haddaad wax falaysaan. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. waxay yidhaahdeen aabbow maxaad noogu aamini ladahay Yuusuf innagoo daacad u ah wanaag la jecel. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. nala dir berri si uu baashaalo oo u cayaaro innagaana ilaalin oo gaar ka hayn. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. Yacquub wuxuu yidhi waxaa i walbahaarin inaad la tagtaan waxaana ka cabsan inayay cunto idinkoo moogan. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. waxay yidhaahdeen haddayay cunto innagoo weliba koox ah markaa hubaal waa inaannu nahay khasaaro u joog. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. markay la tageen oo ay ku heshiiyeen iyagoo dhammi inay dhigaan gunta ceel salkii waxaan Yuusuf u waxyoonnay waxaad maalin uun u sheegi doontaa arrinkani iyagoo aan ku baraarugsanayn. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. waxayna u yimaadeen aabbahood habeen goorfiid ah iyagoo ooyaya. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. waxay yidhaahdeen aabbow waannu tagnay inaan tartanno waxaana ku dhaafnay Yuusuf alaabtayada agteed markaasayay cuntay adiguse nama rumaysanaysid walow aan run sheegayno. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. waxayna keeneen shaarkiisii oo leh dhiig been ah. Yacquub wuxuu yidhi mayee nafahiinna idiin qirxisay arrin sabarkaasi wanaagsan allena waa kan laga kaalmaysto waxaad tilmaamaysaan. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. waxaa yimid socoto waxayna direen biyo dhaamiyahoodii oo hoos ceelka ugu sii daayay wadaantiisii. wuxuu yidhi waa bishaare
kani waa wiil yar wayna qarsadeen badeeco ahaan allena waa u ogaa waxay fali وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين waxayna siisteen qiimo yar dhowr qadaadiic oo fida ah waxayna ahaayeen kuwo aan u hayn wax rabitaan ah وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون kii gatay oo reer Masar ahaa wuxuu ku yidhi marwadiisii wanaaji oo ka yeel meel sharaf leh hoygiisa waa intaasuu na anfaco ama ka dhigano wiil sidaasaan ugu awoodsiinay Yuusuf arlada iyo inaan barno fasirka dhacdooyinka iyo riyooyinka allena waa ku guulaystaa arrinkiisa dadku badankiisu se ma oga ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين markuu tabargalay waxaan siinay fahmad iyo cilmi sidaasaana ku abaalmarinaa samafalayaasha وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون waxaa doontay tuu gurigeedii joogay inay u soo jiido xumaan zino waxayna xidhay albaabadii oo tidhi ii kaalay wuxuu yidhi allaan ka magan galay rabbigay wuu wanaajiyey hoygayga mana liibaanaan daalimiintu ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين way ku hamiday doontay inay u soo jiido falka xunee sinada isaguna wuu u liici lahaa hadduusan arki lahayn xujada cad ee rabbigii sidaas waxay ahayd si aan uga duuno xumaanta iyo foolxumada wuxuu ka mid yahay addoomahayaga daacadda ah واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم waxay labaduba u orotameen albaabka waxayna ka jeexday shaarkiisa xagga dambe isagoo ka cararaya dembi waxayna kula kulmeen ninkeedii albaabka waxay tidhi muxuu yahay ciqaabka kan la doona xumaan xaaskaaga aan ahayn in la xabiso ama cadaab xanuun badan قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين wuxuu yidhi iyadaa doontay inay ii soo jiido xumaan sino oo markhaati ka mid ah ehelkeeda baa ka marag kacay haddii shaarkiisa laga jeexay dhinaca hore run bay sheegaysaa
isaguna wuxuu ka mid yahay beenalayaasha. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. haddiise shaarkiisa laga jeexay dhinaca dambe been bay sheegaysaa, isaguna wuxuu ka mid yahay runlowyada. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. markuu arkay shaarkiisa oo ka jeexan gadaal wuxuu yidhi, taasi waa dhagartiinnu way weyn tahay. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. yuusufow iskaga jeedso waxa kan oo xaaskaygay u weydiiso cafis dembigaaga, waxaad ka mid tahay kuwa gafaye. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. haween ku sugan magaalada waxay yidhaahdeen, marwadii wasiirka waxay doonaysaa inay u soo jiido xumaan wiilka yar ee addoonkeeda ah, jacaylkiisa qalbiga ka galay, waxaan u aragnaa inay ku sugan tahay gef muuqda. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. markay maqashay xantoodii bay u egdirtay oo u diyaarisay fadhi martiqaad, waxayna siisay mid walba oo ka mid ah middi oo ku tidhi, yuusuf u soo bax. markaasay markay arkeen aad u weynaysteen oo iska gooyeen gacmahoodii iyagoo la cajabsan oo yidhaahdeen, allah baa ka hufan nuqsaan, kani maba aha qof caadi ah, kani ma aha waxaan ahayn malag sharaf leh. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. waxay tidhi, kani waa midkaad igu eedayseen, anigaana doonay naftiisa, wuuse isdhowray, hadduusanna falin waxaan amrayo, walee waa la xabisi, wuxuuna ka mid noqon kuwa la liido. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. yuusuf wuxuu yidhi, rabbiyow, xabiskaan ka jeclahay waxay iigu yeedhi. haddaadan iga weecin dhagartooda, waan u iilan oo ka mid noqon jaahiliinta. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. markaasuu rabbigii ka aqbalay baryadiisa oo ka weeciyey dhagartooda. hubaal alle waa wax kasta maqlaha, wax kasta ogsoon. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين.
dabeeta waxaa u muuqday kadib markay arkeen caddaymaha inay xidhaan ilaa muddo. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. waxaana la galay xabsiga 2 nin oo dhalinyaro ah, midkood baa wuxuu yidhi, waxaan is arkay anigoo miiraya khamro. Kii kalena wuxuu yidhi, aniguna waxaan is arkay anigoo ku sida madaxayga korkiisa kibis ay shimbiruhu wax ka cunayeen. Noo sheeg fasirkeeda. Waxaan ku aragnaa inaad ka mid tahay samafalayaasha. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. wuxuu yidhi, ma jirto cunto la idinku siin soo jeed ama riyo oo aanan idiin sheegi doonin fasirkeeda ka hor inta aysan idiin imaan. Kani waa wax ka mid ah waxaa Rabbigay i baray. Waxaan anigu iskaga tegay diinta qolo aan rumaysnayn Allah oo ah kuwa beeniya aakhirada. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. waxaana raacay islaamka diinta aabayaashay Ibraahim, Isxaaq iyo Yacquub. Naguma habboona inaan la wadaajinno alle cibaadada waxna waxay ahaadaanba. Arrinkani waa fadliga Ilaahay noo galay inaga iyo dadkaba, dadka badankiisuse kuma mahdiyaan. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. labadayda saaxiib ee xabsigow, ma rabbiyo kala duwan baa fiican mise Allah waaxidka awoodda sare leh uu wax ku muquuniyo. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ma caabudaan Allah sokadii waxaan ahayn sanamo aad magacyo u bixiseen idinka iyo aabbayaashiin oo uusan alle u soo dejin wax xujo ah. Xukunka ma leh waxaan ahayn Allah. Wuxuu amray inaydan caabudin waxaan ahayn isaga keligii. Arrinkani baa ah diinta toosan, dadka badankiisuse ma oga. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. labadayda saaxiib ee xabsigow, midkiin wuxuu u shubi mudanahiisa khamri uu cabbo, kan kalese waa la deldeli, markaas shimbiruhu waxay wax ka cuni madaxiisa. Arrinka waa loo xukumay la xidhiidha waxaad iga waraysateen.
قال للذي ظن أنه ناج منه اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن 10 سنين. wuxuuna ku yidhi midkoodii uu ogaaday inuu badbaadayo, igu xus mudanahaaga agtiisa, ha yeeshee shaydaan baa halmaan siiyey inuu u xuso mudanahiis, markaasuu ku sii jiray yuusuf xabsiga 2 sannadood. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. boqorkii wuxuu yidhi, waxaan arkay 7 sac oo buurbuuran oo ay 7 caato ah cunayaan iyo 7 sabuul oo cagaar ah qoyan iyo 7 kale oo qallalan. Mudanayaalow, ii caddeeya fasirka riyadayda haddaad fasiri kartaan riyooyinka. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. waxay yidhaahdeen, waa riyooyin qarow isku qasan ah, innaguna ma naqaano fasirka riyooyinka. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. mid ka mid ah labadii maxbuus kii badbaaday oo xusuustay muddo dheer kadib baa yidhi, anigaa idiin sheegi fasirka riyadaas ee idira. يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. يوسف run badanow, noo caddee fasirka riyada ah 7 sac oo buurbuuran oo ay 7 caato ahi cunayaan iyo 7 sabuul oo cagaar ah qoyan iyo 7 kale oo qallalan si aan ugu laabto dadka si ay u ogaadaan. قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. يوسف wuxuu yidhi, waxaad wax beeran 7 sano oo xiriir ah, waxaad goosataan u daaya sabuulkiisa wax yar maahe oo ka mid ah intaad cuni. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. markaas waxaa imaan intaas kadib 7 sannadood oo dardaran oo aad cuni waxaad horay u dhigateen wax yar maahe oo ka mid ah waxaad kaydsateen. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. markaas waxaa imaan intaas kadib sano ay dadku heli roob oo ay dhexdii miiran doonaan cinabyo. وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. boqorkii wuxuu yidhi, ii keena Yuusuf. markuu fariin sidihii u yimid wuxuu yidhi, u noqo mudanahaaga oo weydii muxuu ahaa xaalka haweenkii iska saray farahooda. rabbigay waa og yahay dhagartooda.
قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. wuxuu yidhi muxuu ahaa arrinkiinnu markaad doonteen inaad u soo jiidaan xumaan yuusuf? waxay yidhaahdeen allaah baa ka hufan nuqsaan, kuma aanu ogin wax xumaan ah xaggiisa. marwadii wasiirkana waxay tidhi hataan xaqu waa cad yahay, anigaa doonay inaan u soo jiido xumaan, isaguna run buu sheegi. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. arrintaasna waa inuu ogaado inaanan ku khiyaanin maqnaashihii iyo inuusan alle toosinin dhagarta khaa'iniinta.